haddaad leedihiin yacni beeshu ma laha ma hubaysna haddaad leedihiin ilaahay baa hub noo dhiibi kallii bare 114 ayaa gacanteenna ku jira haddii aad yacni naga dayn weysaan dhibka annaguna waa callaqaynaa kursiga asaga ah ciddii soob ka qaltaagta abkay loo bogow zam taariikhdu galabta waa 22 waa Febraayo waxaan gaarsiinaynaa dawladda federaalka iyo midda maamulkaba in ay dhageystaan odayaasha culimada dhammaantood wada jooga oo galabta bayaanka soo wada saaray kursiga naga u madax bannaan cid alle cidaan doonaa ayaan siistanayna waan horeyna waa u bixinay daahir indha qarshaan siinay garan looba wuxuu isku raacay indhaqarsh daahir aadan cilmi indhaqarsh ayaa isku raacnay cid kale ma doonayno in kursigaas hoob 20 laga daayo faragelinta ama arrimaha laga sheegayo suuqa naga soo gaarayo taliya ciid dhammaanteen waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan codsanaynaa kursiga yaga inuu madax bannaan yahay inuu nin yahay inaan nala ku faragelin in la ku taageero in la ku soo dhaweeyo annaguna cid kale oo dhan oo qorsheeyaan ku soo dhaweyn sidaas baan codsanayaa kullu laabanaya suldaan ahaan akidaya doorashada markay joogto iyo danaha reerkeena dayday iyo haween uma rabniyo daaqad laga keenye daahir ina qarshaan ugu matala doorashada guud haddaan la isdafirahayn khabiir durugsan weeyaane isaga dadnimo iyo aqoon lagu dowgalay isagaan dagaaladii ahliga qabiil loogu duruxulina danyarteena isaga u dira deeq waxbarashaade isaga database iyo u qoray dirata liis ciidan isaga bilada dahab aha darajo loo siiyay isaga wuxuu soo dalbado madaxdu diidayna damiirkaaba yeelayn cid kale doonta oo raba ee hadii si aan la deyn oo kursiga maanta lagu doodo ama dumar la keeno iyo haween loo durbaantumayo ama duqa saxiixa iyo suldaan aan la darajeynin dulli qaadan mayno oo xornimo waa ka dirirnaayay dhalinyaro diyaaraan ogahay oo daacad lagu dhaarshay digtoono dagaal inuu dhaca loo diyaar yahay waxa lagu jira sanad election diyaar garow doorashooyinka aan sanadkan ku jirno waa doorashooyin dadban oo ka dhib badan ama ka qaab daran ama ka magacaysan doorashooyinkii caadiga la mari jiray waa doorasho dhib badan waxaan ilaahay markuu hore ka baryahay in ummadda Soomaaliyeed doorashadan aysan noqon mid dhibaato iyo xasoololo darro iyo dhib u keento ummadda Soomaaliyeed inay noqoto mid si xasiloon oo maxaa ku dhamaata abuurtana inay dhaliso hogaamiyihii u qalmay inuu dalkan hogaamiyo waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaba inaan loo hirteelin dhabadaas iyo dhaba lamid ah laga fogaado isdaba marin musuqmaasuq iyo nijeclaysi si gaara maamulka galmudug waxaan dardaaran u siinay inay tixgeliyaan rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed inay ayagu soo xushaan qofkii ayagu ay rabaan inuu u masalo mas'uuliyadooda oo ay noqoto jifo walba inay iyadu inta heshiis ku noqoto ay tira anaga hebel baan matalaya markaas waxa imaanaya nin laga raali yahay oo tolka jifooyinkaas ay raali ka yihiin kuna matali kara golaha shacabka wuxuu noqonayaa meel xalaal oo dhalisa madaxweyne xalaal gudoomiye xalaal gudoomiyaal ku xigeen oo is ogol oo isku isku meel wada socda haddii la waayo oo la garab maro dalkan khatar buu ku jiraa haddii la garab maro marka anigoo soo gaabinaya waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu qaadir baan ka baryeena ilaahay inuu tawfiiqda waafajiyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo jifooyinka Soomaaliyeed in ay ku heshiyaan wax laga rabo si uu noqdo danta Soomaaliya iyo danta shacabkeena loo gaaro aad iyo aad baa u mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha guulaysto nabad iyo xasilooni ilaahay hana siiyo aamiin